ayaan xasan ducaale waxaa salaamaya madaxweyne Dani iyo madaxdii iyo dadkii oo dhan madaxtooyada jooga iyo ganacsatadii dhammaan waan salaamaya waxaa si gaar ah ugu mahadcelinaya madaxweyne Dani waxaa ka codsanaya inuu marka hore dhakhtar caafimaad geeyo dhakhtarka ugu caalamsan خير هذا إن شاء الله وعافماذ يساعد إلهي المياه آمين إلهي da'yartaa dhulkeediyo dudaday ku dhalatiyo dacda hooyo jiifto weli dalan dalbaran iyo dalab iyo ilmaan ahay gabar aragga daymada rabbi uu ka daahiyo indhoolkaa damaan ahay ruux damac sarreeyo xamid durugsan yeesho duruustii aqoontii doonaya baan ahay dalkaygiina kama helin daryeelkaan u baahnaan maantana dahuubiyo dacwad iyo su'aal iyo fariin baan u dirayaa dowlahaan bulshada iyo dowladayda wacan iyo madaxweyne Daniyow doodaydu waxay tahay ama deeq waxbarashiyo horda dibadda ii dira ama degmadan ku noolahay degalkayga joogay dugsi kaale ii fura darsi aan ka baran karo إن شاء الله آمين qofku waxa ugu weyn oo hadii uu baahi gaar qabo cid garab taagan inuu waayo ugu daran ya awoodda kala toode waxa ilaahay waa qadaray oo wixii ilaahay qadarnina habta kama horsaay karo laakiin sida dadka kale too iyagu danahood u tashanayaan qofkan kale too markii la baahi gaar qaba wuxuu u baahan yahay cid maarta ag taagan bulshadaana mar walba iyada isku tashata dowladnimadana waa dadka oo dantooda oo ka qabsada dad gaar oo yaala ma jirto marka aadan u mahadcelinayaa runtii dareenka degdega ah oo ganacsatada iyo dhammaan dadku ay maalmihii dhaweed ay qaateen ka xukuumad ahaanna insha Allah awalba dowladda iyaga aasaas u ahaa inaan taa ka sii wada shaqeyno sidii loo hirgelin lahaa kow wixii baahida ay tabayaan oo xagga tacliinta inay helaan iyo wixii daryeel ah ka gadaalna in maaragtay arrimahooda kaleeto oo ku saabsan tacliintooda iyo mustaqbalkooda wixii laga qaban karo inaan ka qabanno aadaan runtii ugu rajo weynahay arrintaasna si fiican baan wax uga qaban doonaa haddii ilaahaydan ka dhigo wixii karaankeenna oo dhan waan istaagi doonaa haddii ahaanad caafimaadkooda iyo haddii ahaan tacliintooda dabcan maalintii dhaweyto dareenka dadka oo dhan aad u hadlaysay laakiin hadda wixii tabar ah unba hadba la dhaqaajin doonaa haddii ilaahay ka dhigo dabcan haddaba waxa isku dayaa jira kooban Puntland oo dadka indhaha la garo waxba ka jira kuwa dhagaha la iskuulaad baa jira laakiin sidii la rabay ma wada aha oo waan dadka lagu soo jeedin waxaan inta in ka badan waa la qaban karay marka dareenkiina aadan uga mahadnaqeynaa haddii ilaahay idmo annagana waajibkeena intii karaankeena un baan gudan doonaa anagoo iswada kaashanayna haddii ilaahay idmo ayaan iyo cunuga yaroo kaleeto oo dabcan hadday noqoto wax dad waxaa jira dhalasho oo waxba laga qaban karin iyaga caddayn doona haddii ay tahay wax laga gaari karaan intii karaan ah inay hesho marka insha Allah khayr baan rajeynaya hadda quraanka ma dhigataa ya quraanka soo inta soo farto laakiin far ma jirtay waxaan ka wadaa inay xafido insha Allah de kulli materialkii iskuulkii inaan howlgalno sida ugu dhaqsaha badan hadii ilaahay ka dhigo marka taasna insha Allah wixii karaankeena aan qaadanayna hadii ilaahay ka dhigo waana wax badan inaan ka qabanaan rajeynaya hadii ilaahay dhinacaas akhyaarta looga mahadcelinaya runtii dadaalka xaawana runtii dareenkaaga aad lagaaga mahadcelinaya wax fiican baad dadka tustay waajibkoodii baad dareensiisid marka munaasabad ku habboonna waa ahayd oo runtii warar badanaa wax laga hadlaa laakiin meeshaas waxay ahayd meel ku habboon in dareenka laga celiyo marka insha Allah idinkana khayr badan aan idin rajeynaya haddii ilaahay ka dhigo